ururka dhalinyarada Soydafo Burco ayaa waxa uu si weyn u xusay maalinta nabadda adduunka oo ku beegan 25 May taasoo beesha caalamku aqoonsatay inay tahay maalinta nabadda adduunka waxaana dhalinyarada kala duwan ee ku nool daafaha caalamka ay si weyn uga qayb qaadanayaan xuska maalintani ururka Soydafo ayaa waxa uu socod maalinta nabadda lagu weyneynayo ka soo bilaabmay xarunta shacabka iyadoo socodkaasi lagu muujinayay muhiimadda ay leedahay nabaddu waxaana ka qayb qaadanayay dhalinyaro ku dhawaad 100 dhalinyaro gaadhaya waxaana horkacay mas'uuliyiinta sarsare ururka Soydafo Burco agaasimaha ururka Soydafo Burco Cabdirasaaq Maxamuud Cabdi ayaa isagu ka hadlay muhiimadda ay maalintan u leedahay guud ahaanba beesha caalamka waxaana hadladiisii kamid ahaa sida tan maanta waxaynu isugu soo baxnay inaynu xusno maxay 25 May oo ah maalintii loo aqoonsaday inay tahay maalinta nabadda iyadoo runtii adduunyada dacaladeeda dhan dhamaanteed laga xusayo runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu socod nabadeed aan ka soo bilownay shacabka waynu ku soo gaadhnay xafiiska dhexe ee Soydafo inagoo runtii dareenkeena iyo shucuurteena muujinayna oo runtii doonayna bulshadeena inaynu maalintan ku baraarujino si loo ogaado in nabaddu qof kasta oo noolaa u baahan yahay si taa loo helana ay qof kasta kaalintiisa inuu ka qaato dhalinyaraduna ay tahay laf dhabarta bulshada oo haddaanay dhalinyaradu aanay ka qayb qaadan oo aanay adkeynta iyo xoojinta nabadda aanay kaalintooda ka qaadan runtii adkaanayso in runtii la helo ama ay sugnaato nabaddu sidaa daraadeed waxaan naftayda iyo dhammaantiinba aan runtii nagu adkeynaya in aad runtii kaalinta dhalinyarada ah inay hormuud ka noqdaan nabadda iyo adkeynteeda inaad muujisaan qayb ka ahaataan oo runtii wax kasta oo runtii khuseeya arrimaha nabadda in runtii qof kasta dhalinyarada kaalintiisa ka qaato ugu dambeyntii waa markii ugu horeysay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laga xuso maalinta loo aqoonsaday nabadda adduunka waxaana ururka Soydafo Burco uu noqonayaa ururkii ugu horeysay magaalada Burco ka xuska maalintani ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش شبكة عالمية هروناغ نيوز برعو